salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawada ku soo dhowaada barnaamijkeennii wax weydiin ogaal ka sheegne. ciidamada hogaamiyaha khaliifa xaftar oo ahaa kuwa ugu awoodda badnaa dalka liibiya tan iyo intii aanu fara saarayn turkigu oo si weyn u naafeeyey xoogna u wiiqay ayaa hadda dardar horle la yimi dibna u soo ragaal celiyey. colka khaliifa xaftar ayaa qaaday weeraro xoog leh oo ay ku ekaysiiyeen goobihii iyo bogcadihii hore looga qabsaday ama laga diray. duulaankan cusub ayay ka bilaabeen laba jiho oo kala ah bari iyo galbeed iyagoo qabsaday xadka u dhexeeya aljeeriya iyo liibiya oo muhiima. waxay la wareegeen saldhigyo waaweyn, jidad halbowle ah iyo marino muhiima oo ay ka cunaqabatayn karaan xukuumadda dhexe ee dalka liibiya. col iyo camaaryaley iyaguna taabacsan khaliifa xaftar oo ka dhaqaaqay magaalada banqaasi ayaa sii dawanaya isla jeerkaasna dabayshanaya saxaaraha ballaadhan ee u dhexeeya tiriboli iyo magaalada banqaasi. docda kale xukuumadda taagta daran ee ka dhisan liibiya ayaa iyaduna isugu timi shir deg deg ah oo ay isugu qoor laabtay, waxaana la sheegay inay soo saartay go'aamo ciidan oo looga hortegayo colka khaliifa xaftar ee ku soo siqaya. waxay ku dhawaaqday dowladdu xukun milatari oo deg deg ah iyadoo amar ku bixisay in sida ugu dhaqsaha badan la ysaga caabiyo ciidamada khaliifa xaftar. xukuumadda ayaa dhinaca kale warqad cabasho ah u dirtay jamciyadda guud ee qaramada midoobay iyo ururka midowda afrika iyo weliba ururka midowda yurub iyadoo ka codsatay in laga soo gaadho hogaamiya khaliifa xaftar oo jebiyey heshiiskii gugii 2020 lagu wada gaadhay ceelka baarliin. heshiiska ayaa dhigayay 4 qodob oo kale ahaa in la sameeyo xabad joojin, in la sameeyo awood qaybsi, in khaliifa xaftar uu noqdo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka liibiya, iyo qodobka u dambeeya oo ah in xukuumadda xilka haysaa sii joogto meesha laba gu. si kastaba ha ahaatee kuwa wararka safriya iyo duulka siyaasadda raxaanshuba waxay sheegeen kuna xamanayaan inay arrinta soo abaabushay dowladda masaarida iyo faransiiska oo iminka isku qudhaadha ayna si weyn isu hayaan turkiga. xukuumadda israa'iil iyaduna waxa ay soo bandhigtay diyaarad kuwa iswada ah oo ay sheegtay inay qaadayso culayskii ugu badnaa abid oo ah hubka iyo saanadda shucaaca ee waxalliga afka qalaadna lagu dhaho leesarta. diyaaraddan oo tooxdeedu yar tahay waxay sheegtay yuhuuddu inay socon doonto dhowr kun oo geedi oo isugu jira cokan iyo ooman. intaa waxay ku dareen inay diyaaraddani ka dhuuman doonto raadarrada cadowga sheega iyo gantaallada nacabka lagu hilaadiyo. waxay sheegeen inay hawada taagnaan doonto 5 bilood oo la xisido, isla jeerkaasna dulundulcayn doonto iyadoo aanay cidibo ogaan. inkastoo aanay talabiib biniixin cidda loo samaystay birqalaxdan, haddana waxaa laga wadi waayey oo iska bacad inay ku jihaysan tahay dhinaca jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan oo beryahanba uu ka dhexeeyey halgaad iyo dhabarka wareen, kuwaasi oo iska meersanayay halbowlayaasha dhaqaale iyo kuwa ciidamada qalabka sida. wakaaladda waddooyinka iyo jidadka tareenada ee dalka masar ayaa wargalabeed ay soo saartay iyaduna ku sheegtay inuu jidka ka baxay hankaraarac kuwa xamuulka qaadaa. waxaa la sheegay in tareenkani marayay duleedka waqooyi ee magaalada aliskandariya, islamarkaana uu xawli iyo xawaaraha uu ku safrayey sababay inuu toobiyaha ka baydho. waxay intaa ku dareen in tareenkani uu jiidhay deegaamo beeraley ah oo halkaa ku yaalay, isla jeerkaasna uu geystay khasaaro isugu jira mood iyo nool. tareenkan ayaa siday alaabooyinka laga sameeyo kiimikada, markuu dhacayna wuxuu sameeyey baa la sheegay qarax weyn. ilaa hadda waxaa la og yahay dhaawaca 40 qof oo la gaadhsiiyey cusbitaallada magaalada aliskandariya, kuwaasi oo loo boogadhayayo maadaama xaalkoodu culus yahay. afhayeen u hadlay wakaaladda waddooyinka dalkaasi wuxuu biniixiyey in lagu qanacsan yahay jidka oo la gooyey loona suulinayo ama loo dacal saarayo in shilkan ay sababteeda lahaayeen kooxo reer guuraa iyo isugu jira qaar dowladda ku kacsan oo goobtaasi ka baadhanayay qaniibadii ay mahoobiyaan. weli waxaynu ku jirnaa wararkii dalka masare. waxaa la arkayay iyadoo la kala jiidayo mudanayaasha xarunta baarlamaanka ee qaahira oo la isaga carro qaaday.
waxaa la geeyey ciidamada nabadda ilaaliya kadib markii looga baqay inay halis geliyaan dad laxaad leh oo isugu yimi afaafka hore ee barxadda aqalka wakiilada ee masaarida. gudaha hoolka shirka ayaa waxaa ka socotay qaraarka doodo hor yaalla xildhibaanada dalkaasi oo iska soo horjeeday. doodda ayaa ahayd qodob sheegaya in lagu yareeyo guurka 4 haween ee ninka reer Masar yeelan karo sidii loo joojin lahaa. qodob kale oo laga hadlayay ayaa isna tibaaxayay in afada la furo la siiyo waxoogay silimo ama xuquuqo ah oo ka weyn tii ay xaqa u lahaayeen ee diintu u jidaysay. qodobadan oo iska soo horjeeda ayaa la kala taageeray, waxaana dumarkii raggu qabay soo qaateen saan iyo gog lagu soo xardhay. waan ogol lahay naagtii la furo inay hesho wax ka badan waxay xaqa u lahayd. sidoo kale waxaa iyaguna maya isla soo taagay iyagoo boolersita duul haween la yidhi ee aan la qabin, oo sheegay inay misena ogol yihiin guurka ninka ee haweenka badan. docda kale haweenkani waxay la iyo laba iska taageen in naagta la furo la siiyo wax ka badan waxay ninkii qabay xaqa ugu lahayd. taasi waxay soo waldaamisay in gacanta la isula tago oo gambooleydii meesha tubnayd ay timaha isjiidaan, iyadoo bilayska iyo ciidamada nabadgelyaduna kala dhex hordeen. wadaadada iyo ururada diinta ee dalka Masar ayaa iyaguna arrintan uga dibinjaaqay siyaabo kala duwan. si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha urur haween oo u hadlaysay haweenka ayaa sheegtay in qaraarkani fawdo keenayo, isla jeerkaasina aanu qorshaha ay wadaan ahayn guursiga dumar badan, balse ay xoogga saarayaan in haweenka la furo ay xuquuq helaan. dowladda dalka Itoobiya ayaa sheegtay iyaduna war cusubna ka soo saartay doorashadii maraq booliska ahayd ee laga macmacayay dalkaasi oo qaarkeed soo dhammaatay. quraaradaha wararka baahiya ayaa laga arkayay doorasho wax lagu sheegay oo ka dhacday deegaamada qoomiyadaha Bishanguul, Gambeella iyo shucuubta koonfureed ee Itoobiya. waxaa la sheegay in meesha wax la tirinayo oo codkii la kala gurayo. guddoomiyaha guddida doorashada u qaabilsan Itoobiya ayaa bitiyey in doorashadu ay u dhacday si nabadgelyo ah oo aanay deere hirdiin, isagoo intaa ku daray in natiijada lagu dhawaaqi doono dhowrka caanamaal ee inagu soo beegan. wuxuu sheegay in goobaha qaar ay cillado farsamo yimaadeen oo khadka isgaadhsiintu xumaaday, taana ay isla garteen inay siiyaan saacado dheeraad ah oo ay ku dhammaystiraan wixii ay dadku dowga u lahaayeen. wuxuu sheegay inay goobtaa joogeen oo la geeyey kormeelayaal carreeda ka soo hangagaaray iyo weriyaal warka dhaliya si aanay caloolyow iyo madmadowga iman. madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa ka mid ah xubnaha korjoogtada ah ee u socday ee isha ku hayay waxaan lagu sheegay doorashada ee laga malaqabolinayo dalka Itoobiya. Olusegun Obasanjo oo ka hadlayay sida ay u socdaan iyo doorashada nooca ay tahay ayaa biniixiyey inay tani ugu wanaagsan tahay dhammaanba doorashooyinkii ka soo dhacay dalka Itoobiya, taasoo macnaheedu yahay hilbo weyd laga doonay waa weyd. docda kale hadalhayn ayaa ka dhalatay gaari ay qaramada midoobay ugu deeqeen xukuumadda dhexe ee dalka Itoobiya oo dhalada uga baxay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. mas-uul u hadlay hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay inay khalad tahay, isla jeerkaasna ay horeba uga dhici jirtay dalka Itoobiya in gaadiidka hay-aduhu bixiyaan dowladdu isticmaasho, taasoo uu ku sheegay inay kow ka tahay musuqa iyo wax isdabamarinta Itoobiya ku soo caanamaashay. ugu dambayntii daawaday Somalilan, xukuumadda Taybey ayaa meel isla soo taagtay inay Somalilan ku caawin doonto waxoogay isugu jira xaytaraboosh iyo dhalaalo. wasaaradda u qaabilsan qaraamaadka iyo qaadhaanka jasiiradda Taiwan ayaa biniixisay inay in bariid ah u daabuli doonto dhiggeeda Somalilan oo ay beryahanba aan la dhex marin. waxay sheegeen in bariidkan ay ugu tala gashay Taiwan sidii Somalilan isaga dhigi lahayd dabaysha xagaaga ee dhacaysa. bariidkan ayay sheegtay jasiiradda Taiwan inuu yahay dalagii ka soo go'ay gugan beeraha ku yaalla dalkaasi. intaa waxay ku dartay dowladda Taiwan in bariidkan yahay mid il iyo saxar bala, isla jeerkaasna aanu lahayn jajab iyo huftoonna. waxay sheegeen inay ugu talagaleen sidii Somalilan bariidkan uga dhigan lahayd dhowr mar karis, sidoo kalena ay beryo kaga raysan doonaan qadhaabka iyo antaweerka. Taiwan waxay bitisay inay soo raacin doonto dugsiyo la saaro ama lagu radiyo iyo iidaan si aan loogu miigan oo aanu cunaha isu tubin dadka cunaya. dhowaan ayay sheegeen inay soo saari doonaan
gurgursho ay xayiigtiisa leedahay oo ka soo hankagaari doona caasimadda dalkaasi ee Taipei. waxay sheegeen inay ku soo wadi doonaan guure iyo garaarace galab carrow qaboono socod iyo weliba maalin sawaal isla jeerkaasna uu soo qamaadi doono soona qoljeexi doono biyaha gudban ee ay leeyihiin reer kala dhoohintiya. markabkan la soo saaray waxoogayga quwaaxa iyo manaaga ah ayay sheegtay inuu hoggaanka u hayo badmareenno u dhashay jamhuuriyadda Taiwan. waxay daboolka ka qaadeen inay soo manaqatayn doonaan isla jeerkaasna aanay rabin in duulka wararka la ordaa ogaadaan si aanu u ogaan Shiinaha oo ay ka baqayso Taiwan inuu horgooyo maadaama uu baryahanba buuftaamayay kana xanaaqsanaa xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan. bariidkan cad oo dhan 90,000 oo tan ayaa la filayaa inuu dhowaan soo gaadho haabada magaalo xeebeedda Berbera ee gobolka Saaxil. sidoo kale maalinta beriya ayaa la filayaa in si rasmi ah xadhigga looga jaro dekedda haabada marsada caalamiga ah ee Berbera, taasi oo ay dayactir ku samaysay shirkadda DP World ee ay xayiigteeda leedahay dowladda Imaaraadka Carabta. intaa warranay waxaanu ku darnay sama ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Dire ninka halkan idinkala hadlaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo iyo nooli kulante. suubiye money exchange ugu soo hagaag sarifka adeega lacagta darabaysan ee Saad iyo Dahab. sariflahan baxee samada mare sida sagalka roob dhulka wada simee Soomaali idin lagu wada socdaa maka suubiya. sariflaha tagay sidoo yahay daruuseer ma weyda dirir ama sabaxareed ama geeda sirow sabadii ka baxay lagu guuray subax maka suubiya rabow sara u qaad waa mid lagu socde. haddaad u dhiradhaasato inaad waxoogay kawla curaagato lacagtuna kaaga jirto Saad adoon meel kale u daqaqabin fadlan taabo xidig 353 44 xidig qadarka lacageed 4 gees. sarifka lacagtaada ee kaarka Dahab waxaad taabanaysaa haddaad u baahi qabto inaad ehelkii wax u tuurto fadlan taabo xidig 1 xidig 9 3 eber 4 3 eber 3 xidig qadarka lacageed iyo 4 gees. suubiya money exchange. suubiya money